madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka qayb galay furitaanka tartanka Quraanka Kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo ka dhacay magaalada Jigjiga. madaxweynaha ayaa sheegay in tartanku uu yahay mid ahmiyad ballaaran ku fadhiya waliba xilligan lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddu ay doorkeeda ka qaadanayso ardayda gasha kaalmaha hore. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan maanta lagu bilaabayo tartankii heer deegaan ee dhaxmaraya intii soo guuleysatay ee danyarta ahayd. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa waalidiintiin idin suurtageliyay in camalka wanaagsan akhriya adduunka aad guul ka gaadhaan. kulligeed waad guuleysatay ma oran karnaa mar hadda halkaas soo gaadheen oo gobolladii iyo degmooyinkii iyo magaalooyinkii iyo aad maaragtay tartankii ku soo badiseen kulligii waad guuleysateen. hadda waxaa la samaynayaa waxa weeye dadaalkiina inaad sii kala badisaan nidaamkii lagu ogaan lahaa mooye intiinuba dadkii soo guuleystay baa tiimaan yaan oran karnaa. marka waan idin hambalyaynayaa hambalyaan idin leeyahay dhammaantiin. waxaan rajaynayaa insha allah haddii ay tartan fiican oo wanaagsan inta maalmaha khayrka ee Ramadaanta harsanna inaad yeelan doontaan sidii sanadkii horeba xukuumaddu way garab taagan tahay idinka iyo waalidiintii iyo in walba intii dhammaantiin wixii tabarta dawladda cidda markaas guuleysata in dhiirigelin ay mudan yihiin waan garwaaqsanaynaa insha allah haddii la yidhaahdo waan garab taaganahay. aad iyo aad maartay waan idin bogaadinayaa majliska iyo culimadii iyo ahlu khayrka soo qaban qaabiyay tartankan ee waqtigooda geliyeen ilaahay ha ka abaalmariyo. anta waa taariikh halkan aan joognaa ubad diintoodii baranaya akhlaaq tarbiyad islaamka ku koraya inaan halkan maanta dhex fadhino iyadoo aynu ogeyn dagaalkii ku socday diinta ee nagu socday shacab ahaan inagoo ogeyn taariikhdaas maanta halkaa inaan taaganahay runtii nasiib ayaanu runtii u leenahay. ma aha mid deegaankeena keliya saa ku kooban waad ogtihiin toddobaadkan gudihiisa 3 ama 4 jeer baa afar lagu qabtay madaxtooyadii dalka oo ku qabtay ra'iisul wasaare Dr. Abiy qofkan ku xamdiin ilaahay maartay ku xamdiye baa la yiraahdaa. runtii islaamka dalka Itoobiya isbedel ballaaran baa ka muuqda xorriyadda diinta ay u helayaan maartay halka far badan oo soo mareen. marka maanta in madaxtooyadii dalka afar lagu qabanayo anu hadda safkan u socda waa afar weey hadana in afar lagu qabanayo oo ra'iisul wasaarihii dalku uu isagu hogaaminayo afarkii waa wax aad iyo aad u wanaagsan. waxyaalaha u badan ee dadkeenu cabashooyinka ay qabeen ee nidaamyadii Itoobiya ka jirtay ay kaga cabanayeen wuxuu ahaa in nidaamyadii jiray ay ahaayeen kuwa duulaan ku ah diintooda iyo jinsigooda. waynu aragnaa innaga kaliya ma ahay muslimiinta dalka oo dhan ayuu nasrigaas u yimid. si guud aad iyo aad ugu faraxsanahay shucuurtayda runtii aad maalinkii labaad halkan barnaamij noocan aan u imaado muxuu ahaa lagu qabanayay waa taariikh ilaahay inuu sii siyaadiyo waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. tartanka oo ay soo diyaariyeen golaha arrimaha islaamka ee deegaanka ayaa waxaa ka qayb galaya 54 arday oo ka soo gudbay tartanka lagu qabtay degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka. Sheekh Cabdishakuur Sheekh Cabdilaahi ayaa ka warbixiyay tartankani. ilaahay baa mahad iska leh SR TV waa mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin. tartanka quraanka waa kii deegaanka waxaa laga soo bilaabay degmada 95 degmo ee deegaanka iyo 6 maamul magaalo. degmada tartan bay soo qabatay oo madaarista quraanka ku taala ay soo qabatay. degmo walba 3 arday u sareysa 30 juzninka koow gala 20 juzninka koow gala 10 juzninka koow gala yaa gobolka u soo gudbay. gobolkiina wuxuu sameeyay degmooyinkii hadduu gobolku 4 degmo 7 degmo 8 degmo 9 degmo 10 degmo 11 degmo deegaanku intaas ka kooban yahay. markaasuu degmooyinka istiraatiiji u qabtay. استرهاب مركو قبتي درجة اللباد درجة اللباد وهذا قبل كل سبعي صدق هذه أرض أسرة يصير لمبركو نيكي صدق كتوسك قلي
lambar kow ninkii 20ka jus ka galay lambar kow ninkii ka galay 10ka yaa heer deegaan soo gudbay konsolada 6 maamul magaalo deegaanka sidaas oo kale ayagu soo qabteen college oo xaruntii barakacayaasha ayaa iyadana ku jirta tartanka waa 54 arday baa hadda marka maanta tartankan u fadhida oo deegaanka ka soo tartantay goboladii ka timid magaalooyinka ka timid iyo xaruntii barakacayaasha college sidaas uu tartanku soo dhacay 54 taas arday ayaa maanta meeshan ku tartami doona 9 ilmood baa marka kaalmaha ka soo geli doonta lambar 1 soddonka lambar 1 soddonka lambar 2 soddonka lambar 3 sidaas oo kale 20ka lambar 1 lambar 2 lambar 3 sidaas oo kale 10ka lambar 1 lambar 2 lambar 3 9ka arday marka kaalmo geli doona tartanka marka saas inoo soo dhacay deegaanka Soomaalida isbedelka wixii ka dambeeyay waa tartankii afraad ee deegaanka aan ku qabanay way xafiis golaha arrimaha islaamka